إيران هدان قديه إجنو سيدو مريكان كو إيران وأركا دراسات علمية ومريكان كو سميي إيران وحو أركا دولة اللبات برقة دحاء إسرائيل وحكتا وحكتا مركا على هذا وضع حكا وضع سؤال في حبين صدح عرمو دراديد كو إيران مركي إسرائيل لسميي إيران وحكم يشاها إيران إسرائيل dadkii aqbalay in la sameeyo waxa oo muslimiinta ugu waaweyn waxa weyn Iran iyo Turkiga Iran waqtiga waxa ahayd dawlad Farisi ah cilmaani ah oo ka soo horjeeda islaamka iyo carabnimada waxay la safatay 100% Israa'iil waxayna noqotay ashurdiyu al-awwal li Amerika fi al-mantiqa booliska u joogo booliska koobaad Israa'iil ku weyneed ee mantiqada u joogta mukhaabaraadka Israa'iil waxay ku tababaran jireen Iran marka Israa'iil waxa hooyada dhashayba Middle East dhexdiisa marka la fiiriyo waa Iran ee barbaarisay Irantii marka shaha u xukumay marka Iran muhiim ba u tahay Mareykanka arinta labaad waxay u arkaan Iran 79kii markii ay noqotay tawrada ee dagaalkii qaboobana cirka uu marayay ee Iran ay qaadatay khadka ah inay islaami noqotay ka soo horjeesato ee Mareykanka khasaari ugu weynaa ba ku dhacay Mareykanka waxayna qoreen bariga akbar khasaara fi siyasat ar-ribh wal khasaara siyasada macaashka iyo khasaaraha istiraatiijiga waxay ahayd inay Iran ka baxdo maarata khaanadii reer galbeedka garabkii Mareykanka iyo reer galbeedka akhdaada Iran ay gasheen waxa kamid ahaa in ay la heshiiso Ruushka ahayd si ay wax badan u hesho labada waxay tiruu cadow سياسة واحد قال سياسة العراضة كل من ضدي فهو عدو بقادتي تاسينا ومد على ما مرتين مريكا كسو أركي مريكا كمركا من وقت جاس إلا إميكا وكشق يا سوعلين إيران واي محلو سوعلين إيران يا لا وصل بدردود سوتك ود إيران وود وين كرتي دولة قارة قارة ودولة قارة وانا شعبي بلارن و9 boqol مليون وانا وطن دقالها بوحة كرتي وانا ضد بدن او ايرانيين waxay jecel yihiin systemka Mareykanka way ku qanacsan yihiin kartay wayna Mareykaanoobeen marka Mareykanku wuxuu arkaa wax muhiim jiddan ayuu arkaa marka Mareykanku uu arkaa kama quusan la imaka una ka hadhi leeyahay regime change wuxuu marka ugu celcelinayo oo rabaa inay isbedeshaan asaas waa sidaas weeyaan kartay marka Iran بالنسبه لامريكا وكنز وكيد ويال uga faa'iido badan khaliijka dhan oo bariga dhex yaala uga faa'iido badan حتى اسرائيل في بعض الامور maxaa yeelay waa dad ku shaqeyn karaan markay rabaan marka uu sabtaa uu ku dhawaada Afghanistan ma qabsan kareen hadii Iran gaari tan sheekhana meeshaas aan uga faa'iideysto waxa jira dhalinyarada hadda soo kacay Gen Z-ga sheegtay ama Z qayb kamida markay arkaan culimada sunniga ah oo ama khudbad jimcaadii ama meel uga hadlayo Iran in ay cadow u tahay مثلا sunniyiinta waasay u dhigaan marka ay khudbooyinka مثلا akhrinayaan dhalinyaro badan waxaan arkaa Soomaali ah oo dad fiican oo muslimiin ah laakiin isweydiinayso oo aan fahansanayn waxyaabaha meesha ku jiro haddana hadalkaagii hadal ku aadan halkaas laga faa'iideysan karaa ku jiray su'aasha marka waxaan ku weydiinaa waxa culimada sunnada ah culimadeenaba مثلا Soomaalida baadaan ka hadlo markay saa uga hadlayaan oo dhinacaas ay ka abaarayaan dhalinyarada wax isweydiiso waxay u arkaan inay wadaadadan khaldan yihiin oo dadkan muslimiin oo isku mid ay yihiin farqiga u dhaxeeya aan arki karin maxaan ku qancin karnaa barnaamijka intaan ku dhex jirno dhalinyaradaas horta Sheekh Maxamuud in la kala duwan yahay waa waadix oo sunno iyo shiica la kala yahay صح in waxna laga mid yahayna waa wax cad oo waxa laga mid yahay in ahlul qibla yihiin qaarkood oo muslim ay yihiin
ولذلك حتى ابن تيمية كمسار الدين ده رافضة هو يقانموت رافضة دين الروافض ما خارج الدين waxay ku jiraan meesha daa'irada ahlul qiblada ku jiraan okay iyadoo sidaas ah iyo haddana lagu kala duwan yahay istiraatiijiyadaha nolosha akhtaa waxay gashay Iiraan غير caadiya Suuriya ka gashay Yemen bay ka gashay akhtaa sunnaha ay ka gashaa jirto غير caadiya laakiin akhtaada Israa'iil ay galayso marka lagu qiyaaso Iiraan tay galayso waa xamaha الله dul qaadan karaa taa marka la eego midda labaad Iiraan waa qadar istiraatiijiya Israa'iilna waa qadar khalada maxay kala tahay Iiraan waa juz'un min al-jughrafiya Iiraan bay hanaysaa ilaa yawm al-qiyaamah haq bay deganaysaa ama cilmaan noqoto ama sunnah noqoto ama baa jahadaado صح laakiin Israa'iil waa khata dhacay oo socon doona zuuli doona marka midda kale Iiraan iyo Israa'iil iyo caalam al-arabi iyada Iiraan Israa'iil waxa u qoran kullukum waahid mid baan wuxuu u bixiyay Dr. Maxamed Ashanqiti wuxuu u bixiyay ka tirtirista muslimiinta imma bil jumla ina jumladahan laga takhaluso wa imma bi taqsid amba koox looga takhaluso imika Iiraan waxay qaatay taqsidki markii hore waxay ka takhalustay waxa loo yaqaano al-muqawama sunna oo ahayd meesha ugu daciifsan oo ah Gaza kadib waxay ku xisay al-muqawama shiica oo ahayd Lebanon imika waxa u socotaa al-muqawama ايش الشيعة الكبيرة وإيران waxaa dana ku socotaa marka dambe as-sunna adiga waxay ku dilaysaa si taqsiida maxaa dhacdaa Soomaaliga marka qaybin kala iibsanayo hada jumlad ku doonaysaa mise tafaariq si tafaariqa iyo ku dilaysaa marka istiraatiiji ahaan dadka ma tababarnaanku wadaadada nahay waxaan dadka ku tababarnaa naceeb 100% iyo jacayl 100% laakiin dadka waa inaan ku tababarno waxa la dhahdo war dadka way kala dhow yihiin wayna kala fog yihiin oo iyo priorities fiqhul muwaazana waxa jira qof aad la jirin laakiin qasabka ku tahay inaad la jirtid because of mid kale ووحي مارت النبي صلى الله عليه وسلم ألف لام قلبة الروم في أدنى الأرض وهم بعد قليل سيغلبون في بضع سنين لله الأمر محل وقبقبي ويومئذ يفرح المؤمنون مركي روماغو كأتكادان فرصيغا وانفرحنا لماذا؟ لأنه أقرب محي أمسيه كتاب أقرب مركا كنا وافقيه حمر مركا عقلي وحلقو بري علي رادو عقلي استراتيجيغا كلا دورشدا كلا سريسينتا marka saas ka bixi lahayn waxa u baahan marka aan ka sheekaysan karno ifna tacaamul ma'a al-mutaqayyirat al-istratijiyya gartay sax weeyaan gartay ilaahay qaybtaas horad ka sheekaysay sawir qurux badan buu ka bixinaya marka qaybta dambe uu leeyahay wala tajidannahum aqrabahum mawaddatan lil ladina amanu alladhina qalu inna nasara dhalika bi anna minhum qissisina wa rubban wa annahum la yastakbirun wa idha sami'u hadana ma unzila ila rasul tara ayunum tafidu min ad-dam mimma arafa min al-haq sahih waxaan rabaa su'aasha kale qaybtan ku aadan ayadana inaan sheekhana ku weydiiyo maadaama aan milicsanaynay horta Mareykanka iyo u arkaan مثلا إيران laftirkeedu maxay iska aaminsan tahay sidee isu aragtaa horta akhi Iiraan ma fahmi karno haddaan fahmi weyno dowladdii Safawiyada oo abuurantay qarnigii 17aad ee miilaadiga oo dagaal la qaadatay dowladdii Cusmaaniyada waqtigaas la abuurayay dowladdii Safawiyada loo oran jiray Iiraan laga abuuray sheekhow ma ogtahay Iiraan 9 qarni waxay ahayd sunne Farisiyiintuna waxay ahaayeen sunne ninka Safawiga la leeyahay ee asaasiga dowladda Iiraan ee Safawiga qarnigii 17aad ayaa qaatay madhabka uu qaatay horta wuxuu ahaa suufi sunna markii dambana shiico noqday ahlulbeedku waa jeclay shiico ba noqday markuu shiico noqday wuxuu ka dhex waayay Turkiyada iyo Farisiyiintii wuxuu ka dhex waayay qof madhabkii shiicada bara Lebanon buu yimid carabtii Lebanon buu qaatay ayatullaahii Lebanon fadhiyay Lebanon iyo Bahrain baa laga qaaday waxaa la geeyay wadanka Faris Iiraan
iyaga u noqday culimo marka waa inaad ogaatid waxa faris ka dhigay shiico waa carab laga qaaday halkee libnaan ayaantaas dagaalku wuxuu dhex maray dowladda Cusmaaniyiinta oo sunnaha matalaysa iyo dowladda cusub ee abuuratay oo Safawiinta oo Persiankii matalaysa Persiankii 100 sano dhexdeeda ayuu noqonayay shiico يعني الشيعة مدن أغلبية شيعية يوبدناي مركا حدار ربنا ما تينا فهنا دولة وطك حكمتها إيران حكمتها وإن دي بقول نقولنا دولة صفوية يهرك إسامرتي القرن يجي تضبيط طبعا وين نقول نقول قرن يجي تضبيط طبعا بيصاب حيسا كلمة أورانيسا بدحوين من نقول كراقف شيعة وممنوع وحرام بعيد مركا بيصاب في قدر هذا ولاية الفقيه وقت كما عورتي لكن والله رد على waxaa dib u noolay Ayatollah Khomeini dawladda ma lagu dhisay marka waa dawlad Safawiya danaka waxay ku dhisatay nidaamkii qarnigii 17aad soo ma garan marka Iran say isku aragtaa Iran waxa weeyaan ninkan ma aha dawlad wada Faris siyaasadda keenoo yaqaan ninkan Ali Khamenei ma imika la dilay wadaadka baayo ما ها إيران ما ها فارسي وأذري أذري ما تقعنا وأذربيجان أنا كمارة أذربيجان كوي نسوق قاعدين نوكي نجيز أفريقيا مجرد حر لهذا لا تكون المحل هذا أذري كلمة أذري والمغري هبل وأذري هالكيس كسوجي ذا مركا أذربيجان بكلمات ذكر مركا نكري أسر كيسو أذري وأذربيجان وانا بقول كيبا دور يطبن يهين يا إيران مركا ودولة أي دتك جوديه يجو إيران وإلا إيا لبيه طبعا قومية ضد وير شيخو جرتي برشيان كانوا بدن لكن لقطة وضك لقوا حكمه ولقطة فارسية لقطة فارس وحويان ولقطة صدحات الإسلام كا سامينا تارجرن لقطة كوبا وعربي طلباتنا ولقطني مارتي كوهلان باكستاني لقاها مارتي أردوغا تصدحاتنا واتن بل واحدة وطلبات بابا حضارة الإسلام كا ولذلك ذاتك قارو حيد حدان روح الإسلام كوا لقطة عربية عقل الإسلام كوا فارسية سيفت الإسلام كوا عثمانيت ساس ذاتك قارو فكرة غيبيان غيبيان مركز دولة إيران جودية waxay isku aragtaa inay tahay dawlad fikrad cusub keentay oo ah islaam la isku xukumi karaa qarniga 20 iyo 21 isku aragtaa inay vision keentay isku aragtaa in ay badiil tahay isku aragtaa inay aabbo tahay shiicada isku aragtaa markii hore xoriyada waxaan aabbo ahay mustadcafiinta oo dhan adduunka markii waxay dhammaan sunnaha aan aabbo ahay laakiin Iran waxa ka nixiyay باركي إن ربيع العربي قوي قوي ما يفيلين تعظمكي وحي فيلس قوي يدا الله شقي مركو عرفتين قوي يدا الله شقي ياهي او اسلامي سني او ياهي خلخل بيك شي وين لا دغالنت فعلا وانا اختاده وين كشويان اي كوي دي سني ودن سوريا تاريخ هو يدوان marka Iran waxa isku artay inay badil ka tahay awoodna way samaysatay in waxayna samaysatay dad ilaaliya ya dadka ilaaliya waayo محور ilaaliya samaysatay laakiin محورkii waa la dumiyay intii la kariyay waxayadu marka loo weyn jirin محورka lagu mashquuli jiray Hizbullah ayaa la ciirsan jiray iyadoo xoog bay gelin jirtay waa in xoog yeeshaan kuwi markii la soo takhalusay iyadoo loo yidhi gacmaha la jaray gartay sheekhana sidoo kale khubarada dhinaca istiraatiijiyadda ee islaamiyiinta ah ama muslimiinta ah ka wada ama carabta aba iyagu siday u arkaan Iran waa saddex iskuul weeyaan iskuul waxaa ka aabba'a sacuudiga waxaa la dhahdaa sacuudiga wuxuu sameeyey مدرسة استراتيجية أو لدادو الدراسات الإيرانية إيران بيستولكتها مدرسة داسي وحي أهمي سنتهي تضعيف إيران إن إيران ضعيف ومهم مركا إيران أي ضعيفته وحا ضعيفة شيعة بريغة دحي سعودي وحو كبقى استراتيجيا صدح قرأ هي شيعة
shiicadu waa 15%. 2 shiicadu waa milyaneero lacagta ugu badan iyaga haystaa. 3 shiicadu waxay degan yihiin meelaha batroolka soo baxo. waxbarashadan ku fiican shiicadu waa quwa naacima wa quwa naa'ima. quwad lacag leh oo hurdo weeyaan. mar bay kacaan way seexdaan. waxay ka baqaan marka inay kacaan bay ka baqayaan. way kacayaan marka waxyaalaha kicina Iran baa kamid ah. Bahrain baa jirta. Kuwait baa jirta. Imaaraadka jira. waxaasoo dhan shiica fadhida. marka diraasaadka Sacuudigu sameeyo waa in Iran la tadciifiyo si istaraatiiji ah. ولذلك محمد سلمان مركو يبدي يسوي واحد فانساني وحولي إن دقالك وحول بديلنا تهران وادو قد بدي ويقاموسينو دقالك وحول رياض بيبدي هذا في عذر مركبة مركبة تاسوا وعميدو يعني ومدرسة اللبات وحكى أبا محمد حسنين هيكل خبير كيوينا مصري قاع يفهمي هويدي نكردو ويسوونا مصري iyo Abdulwahab al-Masiri oo Masri ah kuwaas isugu jira cilmaaniyiin islaamiba waxay rumaysan yihiin Iran waa quwad haday burburto waan burbureynaa haday noolaatana waan ka sii noolaynaa marka laabudda inaan Iran la saaxiibno dambe ka dhaxarkan kuwaas waxay leeyihiin العالم الإسلامي صدق waxa xukuma qowmiyadood bila kalaam qowmiyad Turkiya qowmiyad Arabiya qowmiyad Farisiya dadka kale inta way socdaan saddexda qowmiyadoodna waxay dhahdaan waa laabti iyo labadii bad arabti waa laabti labada badna waa Faris iyo Turki waa inana ay heshiyaan ya rumaysan Maxamed Xasan Haykal wuxuu dhahdaa waa quwad Iran lisaalixina inta ay jirto waa iskoor kale iskoor saddexaad baa jira iskoolka saddexaad waxaa ka aabaa Nufaysi oo moodid bariyahan dambe inuu isagu dhanka Sacuudiga u batay iyo maaragtay ninka maaragtay Shanqiiti iyo rag badan oo khubara ah oo maaragtay iyakuna madrasada oo wasat waxay rumaysan yihiin Iran waa cadow taktiiki ah Israa'iil waa cadow istiraatiiji marka العدو الاستراتيجي هنو تفرقنا عدو التكتيكي نسكسو نقضو ما فاهمين ولذلك ساكا وحنا قلنا نين مفكر استراتيجي او مصري وحمدان ودي الاورنجري مفكر كجغرافيا سياسي ارضي يساوي حولي ان زوال هذا الكيسوان او انهيار النظام في الايران سيعني انه لم يعد امام اسرائيل غير مصر وتركيا. لو ذاك اللي أوصى هريسة. هدي بيجي. إسرائيل أدي إيران بربرتو نظام كيجو أمبل الزوليو. وحي كده أنت هاي. يا. وحي كده أنت هاي بود. إسرائيل وحوها عليه مصر هي تركيا. بس. سؤال شو مركب واحد نقول نسا من نبدأ مصر أو تركيا. أنا وحي لها استراتيجيا مصر يكون بلا بدونا. مصر رفضت. لأن مصر واحد ديارته يجود على قرحيه. فوضى لك سمايو بيهن ولا حد marka taasi Turki waqti qaadanaysa balaayinimadiisu marka tan Masar ka taqalis doonaan marka waxay ka dhigtaa marka istiraatiijiyadu saas oo arkayaan shaqo gartay istiraatiijiyiinta iyo khubarada muslimiinta iyo carabta qaabkay u arkaysay ayaan ka sheekeynay waxaan galeynaa marka cutubkii shanaad ee u dambeeyay isagana waxaan ka keeni doonaa laba su'aalood waxaan ku eegi doonaa cutubkaas shanaad isagana Iran siday مثلا u ekaan doonto dagaalka kadib iyo xarbiga kadib su'aasha koobaad ku weydiinayo scenario-yaal noocay ah ayaa laga filayaa ama laga fili karaa Iran kadib marka hadaladii la dhageysto Donald Trump uu ku hadlay iyo khudbadiisii جزاك الله خير Donald Trump wuxuu ku hadlay saddex kelmadood oo kala duwan wuxuu yiri nidaamkii waan ka takhalusnay maanta ugu fiican tahay xiwaar diblomaasi oo biyo خلاص waxba dhabayna خلاص haduu wada hadal ogol yahay wuxuu yiri hadal kale dadka wadaniyiinta iyo kuwa nidaamka gudihiisa ku dhex jiray aad ka u fiican gacmaha isqabsada
nidaamka takhalusa noo yimaada mar saddexaad wuxuu yidhi waxaan ugu yeedhaynaa ciidamadu xidhiir baynu la soo yeesheene iyo qorada ilaalada towraduye hubka dhiga waan cafinaynaa waddankana waan idin dhiibaynaa mar labaad ininka iyo wadaniinta hadladaasoo dhan yuu ku hadlay ninka dhado Trump dadka dhegaysanayay hadalladiisaas waxay ku macneeyeen laba shay lambar waxay ku macneeyeen dagaal nafsiya dagaal psychological nafsiya waa xarb nafsi qaarna waxay ku macneeyeen nin war haya laakiin warkiisii wax ka sheegay waxna dib u dhigtay madaxweynaha weeyaan warka ay tuhmayaan inuu hayo maxay waxay tuhmayaan inay dowladda Iiraan diyaar u tahay dadka qaar ka mid ah inay xiwaar furaan isbedel doonayso dagaalna la joojiyo gartay saas dadka qaarna waa akhriyeen imika markaad akhrisatid iyadana Iiraan si u dagaalamayso xiwaar ma u socota waxaanu isagu doonaya ma u socotaa mise ma socoto sawaariikhdii la aacay labada cishe barkaas la aacay Israa'iil lagu aacay waxaa ka muuqataa istiraatiijiyad baciidatul madaa aad u fog sidee uga muuqataa waxay garaacaysaa meesha loo yaqaano talaabiibta weyn waxay eegaysaa sukaanku meeshu ku badan yahay 3 milyan iyo badh ilaa 4 milyan bay hog gelisay oo soo bixin waa meesha ay ka socoto waxa loo yaqaano qiyaadaadku ay fadhiyaan hogaamiyaashu waxa la garaacayo hogaamiyaad garaacdeen ma القائد بالقائد والله صدح وبايع مشتركي يا رجال الدولة يا صناعتي يا هبكي يا ورشده يا دي بابا يا مارتم ايرابوردي وودني اي كنوليد باسرائيل marka aad eegtid haddana ciidanka Mareykanka iyo ciidanka Iran wala tamathuli iskuma dhigmaan laakiin إسرائيل إيران maxay ku kabaysataa waxay ku kabaysataa dagaal taktiikiya مثلا badoo kale 1400 oo mitir weeyaan oo kilomitir 1400 oo kilomitir badda ay ku leedahay madiiqa Hormuz dhaka xiga arrintaasi waxay iyada siinaysaa gargaar ah inay ciyaari karto laana 1400 ma garaaci kareen Mareykanka maalin kasta boqolaalka maraakiib ay leeyihiin imka 10 ka dilay 10 baan ayaan dhaawacay buu doon aan aasay qarq kuwa kale waa qarqii doonaa buu laakiin iyagu waxay sheegeen inay markabkii ku dhawaadeen diyaaradaha sidii oo orday wadimo durkay kuwa naga carreeyay Hormuzna way xidhaan ku guuleysay Hormuz xidhaan marka waxaana la filayaa usbuucan soo socda inay soo galaan Xuseyntii ay xidhaan badda cas waxa haddana la filayaa inay libnaaniyiintu ay galaan Hezbollah meelaha soke Iran soo mashquuliyaan Israa'iil walidaalika 7,000 oo ciidan ay xuduudda keentay Libnaan Israa'iil وحنجباد وان قبصنا يعني لبنان وحين كنت تال لبنان ودنا ضل الشيء هنا يصير قبصنا سبعة إذا سوريا والشرق الأوسط قبل العرب ليست يقول جرتا أوكي أنت مركان هذا كصواب حنو وحنو إيماننا الناس وأشياء أدي ويديسي أحد أن محالة في العالم صومها سيناريوهات كلها في العالم سيناريوهات كلها في المحوية وصدح بيتكم يعني سيناريوهات كلها في العالم إنه دعوة أوكي تكوبادو محي أنا تكوبادو الفيلم محي وحيوب بيحيان علماء استراتيجيو صدح ميد بعد عيسى تكوبادو وحيوب بيحيان الحوار والاستيعاب مرأيكو توضو يعني إنا أوكي ويدك عالمين وإلا ين صفكي كوباد إيا اللبات ودقي أدكا ويدلين قاربضانو أدك ويدلين نظامك هوستا شاكا سعطا ولا sheekaysanaya marka waa in la bilaabo xiwaarkii diblomaasiga